أمي أين أبي أبي أين أمي هو يا أباهي أوي أب هو يدي أوي هو يا أباهي أوي يعني أمي أين أبي أبي أين أمي كلمة وحنو دورتي واقعنا يقاب كان أنه الله أيا عبر يا أرنكا لكن أن قصير كوب اللابو قصة سي محاضرة وحنو مالنا يا تقريبا لبدي كم بان محاضرة عندي ووقت أدوه صدق أفريقيا تصل كورة أيام فينا يا إنا يا هيد maxay ku timid famil ba iskhilaafay Soomaaliyeed waxay iga codsadeen inaan kala dhaxgalo gabadha xoga aad u adkeyd oo odayga ka soo istaagtay odaygu qaad buu cunaa waqti nama siiyo noocan weeyay ku dacwoonaysay gabadhu ana waxaan lahaa qurbaad joogtaa carruur baa meesha joogtaa sabar iyo dulqaad ku dhambe waad ka guulaysan doontaa insha Allah u ducee habeen barki inta soo kacdo وأنا ذا وحبه يقبل ويدي قبل ويدقيسن كري ويدي حق عرورتان كسوق علي وحنقول عرورتان ما أركتها أباك الصدوق كنت أو أصير كفي عن مرنا صورة قال ما أبي عرورتان علي إنه أوقف في عناده لقى يا أبي إنه كون في عناده لكن أيق أوما في عنانا يا مرنا مالكاسي قبل يخشوا عضي سد حدي هبيني ما الله مريا تضباطن كيلو بتركب بدن بان متقانا كسو ayaan ka imaaday qisan kaaga sheekayn bay igu tiri qisadaasi maxay ahayd waxay tiri asbuuci la soo dhaafay ilmo yar ban xanaanada geeyay xanaanadii markaa dabcan inaan ka soo qaado dhulka aan ka hadlayo waa dhul baraf ah barafku sida hadda khaymadan oo kale u cad yahay dhul ma arkaysid oo ciid ma arkaysid oo caleen ma arkaysid barafku wuxuu ku gaarayaa halka lawyaha waa laga yaabaa dad qurbaha ka yimid oo mawduuca garanaya meesha inay fadhiyaan waddanka inaan sheega muhiim ma aha qisada ayaa i khusaysay waxay tiri mar alla markaan wiilkayga yar ka ahaa jaakeedkii dhaxanta aan gacantii midig u geliyay ayaa nin caraba halka baarkinka ah gaari ka soo degay wiilay isku galaas ahaayeen ayaa orod isi sii daayay buu yidhi wiilkayga yar ka ah wiilkii buu sii fiirinayaa waa ku qallalay aniga shaatigan u gelinaya waa iloobay odaygiina wuu soo orday hab ayuu siiyey waa uu xumbaaray waa dhunkaday kana waa dhunkaday kadibna intuu kor ii fiiriyay ayuu yidhi hooyo ani aabbahay awe hooyo ani aabbahay awe ilmuhu aabbu u baahan yahay ilmuhu hooyu u baahan yahay ilmuhu naxariis buu u baahan yahay ilmuhu lutfi buu u baahan yahay waa runtii dhacdo aan ka ooyey weye oo markii koobaad aan ahayn sawir cajiiba baa yaan halkaa ka sawiranayaa wuxuu yidhi hooyo horta aniga aabbahay awe xaaladaas ayada baan muxaadarada marka anugu meel ku qortay inaan muxaadaradaa dhigo oon dhaho ummi ayna abi hooyo awe aabbahay kadibna aabbahay aabbihiina mar kale la yidhaahdo abi ayna ummi aabba hooyade awey bal qisadan sida ay ku timidna ayadana qabsada reer baa aad u qiimo badnaa baa jiri jiray aabbuhu mashquul buu ahaa hooyaduna mashquul bay ahayd markaan leenahay ummi ayna abi ama aan leenahay abi ayna ummi aan leenahay waxaan oga jeednaa dad dhintay ma aha dad qabri galane ma aha waa dad nool nool waa aabba nooloo ilmihiisa aan ogayn waxay cunaan aan ogayn waxay bartaanna aan ogayn gooray seexdaanna aan ogayn gooray soo kacaan aan ogayn waa hooyo nooloo carruurta u fahantay barbaarinta tarbiyada in wax la siiyo caloosha loo buuxiyo dhar fiican loo xidho kaba wanaagsan loo xidho iphone-na loo gado khalaas waa dhammaatay barbaarintii iyo maskaxdii la kobcinayey iyo cibaadadii iyo taacadii meesha markaa way ka maqan tahay hooyadu way nooshahay hooyadu way nooshahay aabbuhuna waa nool yahay haddana su-aashan waa ay timid gabadhii calaa kulli xaal way weynaatay maalintii dambe wiil bay biqudrati illaahi subxaanahu wa tacaala gabadhii shaytaan baa duufsaday biyaa wax loogu daray gabadhii is-ilaaliya gabdho zaman waxaa lagu jiraa khatara haddii aad raacdo hada soo dhowo maasha allah allah ku barakay haddii aad raacdo maxaa la yidhahdaa wiil aadan garanaynin waxaa weeye biyuu ku siin karaa meeqo gabdhood baa arrintaa lagu xumeeyey oo lagu fara xumeeyey gabdhow aad isu ilaaliya gabadhii wiil baa wax ugu daray kadibna xumaan buu ku sameeyey
kadibna gabadhii uur bay qaaday gabadhii way qarsatay hooyadeed ayaa dareentay gabadhan ay calooshu xanuunaysa mantagaysa gabadh walaca dee hooyo way garanaysaa gabadh walaca way taqaanaaye waraysi kadib hooyadii waxay isku dayday ceebtan inay ka hortagto lidaraja inay gaadhay gabadhii intay seexiso inay ku tumato oy sidaa mataqaanaa lugaha ugu garaacdo bal inuu ilmahan yarka a dhinto bal inuu ilmahan yacni intuusan ilmaba noqonin inuu dhiig furan ku dhaco oo sidaa ay ilmihii ku dhinto ceebtina sidaa lagu qariyo laakiin wabilqadari almaqduuri ayqin alla wuxuu qoray cid celin karta ma lahane ilmihii waa dhiman waaye asagoo uurka ku jiro dhiman waaye oo dhiiggii baa soo daadan waaye mar alla maxaa la yidhaha soomaalida waxay dhahaan lixyayn ku sheegin maxaa lihi jiraa anu ku sheegi maaye lixyayn ku sheegin maxaa laga wadaa 6 bilood gabadhu markay gaadho dee calooshii baa soo baxaysa calooshii baa soo baxday kadibna aabbihii arrintii waa ogaaday aabbihii iyo hooyadii ceebtii adduunyada ayaa iskugu timid waxay sameeyaanna way garan waayeen calaa kulli xaal akhiiran gabadhii ayad ahayd dhakhtarkii ayaa la geeyey ilmo ayay umushay mar alla markay umushay oo aabbihii u soo galay ayay intay kor u fiirisay hooyadeed maye ayay tidhi hooyo hooyo intaas sidan u dayacmayey ee waraabuhu meel igu cunayey aabbahay xaggee buu jiray miyuusan aabbahay mas-uuliga ahayn miyuusan aabbahay inuu iga warqabo waajib aynan ahayn qisada maxay macnaheedu tahay macnaheedu waxay tahay ayuha alakhawaat wa ayuha alikhwatu jamiican markaan leenahay hooyo aabba awey waxaa la rabaa aabbuhu waa tiirkii guriga weeye waa barbaariyaha koowaad weeye codkiisa keli a baa tarbiye ah aabbo codkiisa keli a baa tarbiye ah aabbo inuu guriga joogo libax baa guriga jooga asad baa guriga jooga hooyada lafteeda nadaam bay yeelanaysaa carruurtu nadaam bay yeelanayaan laakiin maalintii saaxada laga waayo aabbihii guriga laga waayo si kastoo u soo shaqaynayo si kastoo dhaqaale u keenayo fa subxaana allah in la soo shaqeeyo waa sax laakiin macnaheedu laguma dhihin haddaad soo shaqayso waa in carruurtii la dayacaa meeqa ayaa la fadhiyaa hoteelada meeqa ayaa fadhi ku diri lagu jiraa meeqa ayaa dawlad beenbeena la dhisaa meeqa ayaa siyaasad mandhalaysa laga shaqeeyaa meeqa ma ilmahaagaada wakti u weyday sigiska habeen aan muxaadaro ka dhigayana waan u sheegay muxaadaro cinwaankeedu u ahaa istawsuu binnisaa'i khayran oo aan aad ogaga hadlayay gabadha muslimadda iyo qaabkay wax u mudan tahay ragga waan u sheegay halkana waan oga dirayaa ragga waan u sheegayaa ma soo tukatay salaada cishe ma kitaab baad akhriyaysaa ahlan wa sahlan ma fadhi muhiim ah oo tijaaradaada la xidhiidha miyaad ku jirtaa ahlan wa sahlan wixii duruufo ah oo dee reerka lagaga mashquuli karo waa sax waa haddaad joogto weeye waa inaa haddii kale gurigaagii aad maxaa dhacay waxaa kuu baahan xaaskaagii maxaa kale carruurtaadii baa kuu baahan maanta maxaad soo barateen maanta maxaa laydin soo baray maxaad caqiida iyo fiqi iyo xadiid maxaa maadi ah sayniski iyo waxaad soo barateen waxaa la rabaa in laga warqabo yaa saaxiib la tahay oo yaad la socotaa mobilka maxaa laga dhegaystaa mobilka maxaa laga daawadaa waxaasoo dhan muraaqabada almuraaqaba adaakhiliya waalkhaarijiya aabbihii baa laga doonayaa 6 saac markuu imaado aabbihii carruur waa hore seexatay subxina masaajidka salaada subax markuu aado oo horay shaqada ooga sii aado bilaahi calaykum ilmahaasi iyo aabbaha maxaa ka dhexeeya wax alla wixii dhaca sooma noqonayso ummii ayna abi hooya aabbahay xaggee buu jiray hooya aabbahay muxuu iga wareeyin waayey markaan siyaarka baranayey markaan xashiishka baranayey markaan saaxiibka xun baranayey marka xumaantan aan ku dhacayey markaan wejigayga bedelayey markaan mobilkan ku mashquulayey markaan waxbarashada ka hadhayey aniga aabbahay xaggee buu jiray waa hadduu joogo wey hadduusa joogin sow ma aha oo uu dibadda ku maqan yahay kan muxuu ka shaqeeyaa telefoonku muxuu ka shaqeeyaa meeqaam nooc oo laga xidhiidho ayaa telefoonka ku jira ma whatsapp baad dhahdaa
ma maxaad leedaha Facebook baad dhahdaa ma Instagram baad dhahdaa ma wax meeqa wax baa laga xidhiidhi karaa maanta boqolaal wax baa laga xidhiidhi karaa oo ilmahaaga inaad kala socoto akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo waxbarashadiisa laga doonayo ninka nooca wax u fahmi waaya waxaad ogaataa inay imaan doonto maalin la dhihi doono ummi ayna abi hooya aabbahay away wuu noolaaye xagee buu waxbarashadii iyo aniga mustaqbalkayga ku ogaa markaan leenahay abi ayna ummi markaan leenahay iyadana waa maxay waa hooyo gurigii joogta laakiin maqan waa hooyo gurigii joogta oo jaahilada oo aan ka garanaynin qaabkee wax loo barbaariyaa oo qaabkee maskax loo kobciyaa waa hooyo gurigii joogta oo laga yaaba inay telefoon dhegta ku hayso waa hooyo gurigii joogta oo laga yaaba lafteedu inay suuqa fadhido dee wax soo shaqaynayso isku soo duuduub ama hooyada shaqadaha lagu qasbo oo duruufta ku qasabto ama ha noqoto hooyo noloshaba ka fahansan in calool la buuxiyo ilmaha dhar loo xidho iskuula loo diro waxaan rabaa marka inaan caddeeyo oon dhaho xagga cibaadaday ka imaanaysaa ummi ayna abi xagga cibaadaday ka imaanaysaa abi ayna ummi oo waa maxay nin baa u yimid cumar bin khataab radia allahu tacaala canh wuxuu ku yidhi wiilkaygu ima maqlo wiilkayga baari ima aha wa bara waalidayka waltuticu maa tafuz wasil ayaa bunaya raxima shaacirkii muxuu yidhi wuxuu yidhi ilmahaaga waalidkaa baari u noqo wa bara waalidayka waltutichu maa tafuz baari u noqo ilmahaaga waad guulaysan ilmahayga ima maqla buu yidhi cumar nin daki a buu ahaa caaqila oo xakiima wiilkiibuu u yeedhay maxaad u maqli la'dahay buu yidhi aabbaha wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin horta xaq ma ku leeyahay aniga hooyaday aabbahay nacam maxaa ka mid a marka la isguursanayo oo gabadhu ay wiil raadis tahay ninkuna uu gabar raadis yahay in si dhaba sahanka loo hubsado alraa'idu laa yakdibu ahlah qofka reer u saamiya been ooma sheego way qurux badan tahay ayadaa isu qurux badane meesha laga qurux badan yahay waa qalbiga meeqa nin baa gabadh dhaban iyo qurux ku raadsaday kadibna qaradameeraad noqotay meeqa ayaa nin yacni waxaa weeya waa kala xidhan yahay sigisbaag weeye intaad gaba ku dooratay taariku salaad aan wejiga dhigin noqday maxaad ka faa'idi meesha laga qurux badan yahay waa qalbiga meesha laga qurux badan yahay waa iimaanka meesha laga qurux badan yahay waa salaada meesha laga qurux badan yahay waa akhlaaqda meesha laga qurux badan yahay waa aqoonta iyo cilmiga iyo camalka wada socda meesha wax laga eegaya waa intaa ikhtiyaar baa la dhahaa ikhtiyaaru zawja la yidhaahdaa idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluuqah fazawijuuhu war qofkan diin ma leeyahay oo akhlaaq ma leeyahay tunkaxu lmar'atu liarbac ku dooro diinta saasuu nabiguna baray calayhi salaatu wassalaam haddana wuxuu yidhi ani aabbahay sidaa iguma doorin buu yidhi hooyaday qodob kaleod waa maxay markaad dhalato in magac fiican laguu bixiyo aniga magac fiican la ima bixinin buu yidhi cumar bin khataab wuxuu yidhi kaalay intuusan wiilku caaq kugu noqonin adaa caaq ku noqday buu yidhi muxuu baadhayaa wiilkaas wuxuu baadhayaa hooyadii buu baadhayaa tarbiyadeedii ayuu dhaliilsan yahay walidaalika ibnu qayim raximahu allah waxaa ka mid ah hadalladiisa oo aadka u qiimo badan wuxuu yidhi qofka dayaca buu yidhi ilmihiisa qofka dayaca ilmihiisa caqiide inuu baro salaada inuu u toosiyo hadda waxaa laga yaabaa hooyooyinka sharafta badan ee meesha fadhiya su-aashaa si toosa idiin weydiinayaaye gacanta ha taagto gabadha arrintaas samayso waa tuma gabadha ilmaheeda wiilkeeda gabadheeda iska daa wiilkeeda gabadheeda intay musqusha la tagtay itidhi sidaan u weysaysanaya arag ifiiri bal waan weysaysanayaa hooyoy waan weysaysanayaa bal ifiiriyo bal idaawo sida goorma sida gacmaha loo dhaqo
sida takhliil asaabic loo sameeyo, faraha la isu gelgeliyo, baraajimta waa meesha laalaaban, baraajimta sida loo dhaqo, kaatun ama fargash haday ku jirto sida fargashigaasi meesha looga saaro, kadibna maxaa la yidhaha istinshaaqii, sandaarsigii, soo daadintii, wejiga xadkiisa, wejigu intee dhan yahay, xadkiisu waa intee, iska soo duuduuma oo bal waa tuma, bal gacanta ha taagto gabadha atarbiya alcamaliya oo weysada ah ilmaheeda barta ii sheega, bal ha taagta gacanta gabadhee wey. waan tirinaynaa 1 2 3 baan dhahaynaa, ma jirto. seed marka ilmahaaga aad ku dhigi karta tuko, xageed ku artay tuko? nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam saxaabada tukada un muusa dhihin, mimbarka intuu fuulay ayay labadiisa indhood, labadooda indhahooda bay ku arkayeen nabigu siduu salaada u xidhanayo, meeshuu gacmaha saarayo, siduu u rukuucayo, siduu ugu xasilayo rukuucda, siduu u soo kacayo, ictidaal baa la yidhaahdaa, siduu haddana u istaagayo, wahaakada ilaa uu salaada uu nabigu ka baray saxaabatu rasuulillaah calayhi salaatu wasalaam. caawa ka bilow, caawa bilow. maxaa yeelay yaa kuu xaqiijinaya ilmahaaga weysadiisu inay sax tahay oo tahaaradiisu sax tahay. waa tuma gabadha bartay, gabadh caruurteeda tahaarada sida loo tahaara qaato, waa tuma. waxaana nijaasa, laa xayaa fi diin, diinta lagama xishoode. waxaa jira waxyaabo ay daruuri tahay qofku weliba markuu qaan gaadho hooyadu inay gabadheeda barto, oo haddayna barin ay gabadhi ay najaaso ku tukanayso. dib baad ugu noqonaysaan, fiqiga dib ugu noqonaysaan. say ku dhici kartaa marka inaan dhanuun tukada adiga oon tahaaradii barin, weysadii barin, salaadina barin? hadhowta sooma imaanayso marka ummi ayna abi, abi ayna ummi. inta ay waxan iga kharimayeen oo cibaadadu iga halaabaysay aabba ma lahayn miya? inta ay cibaadadu iga halaabaysay hooyo ma lahayn miya? awe asturkii iyo xijaabkii weligaa gabadhaada ma u kala saartay? maanta su-aalahaydin ku badinayaaye caadada iyo cibaadada xijaabka ma u kala saartay? kelimatu caado waxaan oola jeedaa dhaqan. xijaabku ma dhaqan baa? ma dhaqan carbeed baa? ma dhaqan nairobi baa? ma gabdhaha nairobi baa un is astura, mise waa cibaado? ma aayad qur'aana baa? ma amar ilaahay baa? ma amar nabi muxamed baa sala allahu alayh wasalam? ma waajib baa siday salaadu waajib u tahay? ma waajib baa siduu soonku gabadha waajib ugu yahay? ma waajib baa xaj aad awoodo inaad soo xajido suu waajib kugu noqonayo? ma waajib baa xoolahaaga oo zake gaadhay sida ay waajib u tahay inaad zake aad ka bixiso oo kale miyuu xijaabku yahay? mise waa wax khayaar iyo doorasho iyo ku dayasho ah oo hooyadii baa xijaaban, habaryartii baa xijaaban, walaashii baa xijaaban, gabdhaha deriska oo dhan baa xijaaban, waa layla yaabi. war ma dhaqankaas baad ku xijaaban tahay mise waxaad u xijaaban tahay aayad qur'aana oo dhahaysa yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn. وفي سورة الأحزاب وكذلك في سورة النور الله baa noogu sheegaya gabadha muslimada. haddaba gabadhaada ma u sheegtay asturkan ay asturan tahay ma cibaada mise waa caado? ma dhaqan ba mise waa shay allah loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala? cibaadaday gashaa marka, oo caqiidaday gashaa, oo ummi ayna abi, abi ayna ummi. عقيدة التوحيدك يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة إلى آخر الآيات. لبدا مشهد وجه دوامعي يا بني لا تشرك بالله. سورة اللقمان قرقاقا ولقا مكو أخردي سورة اللقمان أذي عرورت هذا مدرسيسين. سورة اللقمان حكمة أي حنبار سنتهي ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أخلاق أي حنبار سنتهي. سورة اللقمان
tarbiyada ay xambaarsan tahay suuratu luqmaan tacaamulka ay xambaarsan tahay suuratu luqmaan tawxiidka ay xambaarsan tahay suuratu luqmaan cibaadada ay xambaarsan tahay adiga iyo odaygaaga iyo carruurtaada weligii ma daraasayseen ma akrideen tafsiirka sheekh cumar faaruq ma ka dhegaysateen tafsiirka sheekh maxamed umar cabdi umar ma ka dhegaysateen iyo culummada lamidka ah ma ka dhegaysateen waxaan rabaa inaan adkeeyoon dhaho su-aalo badan baa noogu imaan doona ma maqasheen suuratu cabasa aakhirkeeda yowma yafiru lmar'u min akhiihi aayaddaa weli ma ku dul istaagtay macnaheedana ma fahantay waa qiyaamo oo la kala cararayo yaa tura maxaad u malaysa maxaa loo kala cararayaa arrimahan aan sheegaynaan la gudanin qiyaamo waa la kala carari yowma yafiru lmar'u min akhiih walaalka wa ummihi wa abiihi wa saaxibatii xaaski wa banihi ilmahaagi adiga ilmahaaga inaad kala carartaan ma ahane waa inaad aayaddan soo gashaan oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay maalinta qiyaamo family qoyska oo dhan inay jannada isla gelayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku barwaaqaynayo taa weeye midda la doonayo in lagu doonayo inaa idin dheereeyo haddaad cunwaanka fahanteen ummi ayna abi ayna ummi idinkaa durugsan kara mawduuca idinkaa ballaarhsan kara mawduuca maxaa yeelay waad fahamteen risaaladooda meeshay ku socoto gebagabaduna waxaa weeye ubadkaa iyo ubaxa ilaahay nagu manaysay oo hibe ay tahay oo alla bixiyo subxaanahu wa tacaala soo alla yidhi yahabu liman yashaau inaathan weliba gabdhaha laga bilaabay wiilasha gadaal baa laga dhigay waxaad moodaa in caadada iyo dhaqanka qalloocan ee bulshadeennu ay leedahay inuu ilaahay ka sii hordhacayo oo la dagaalamay u leeyahay gabdhaha nicibtii soomaa gabdhahanba ku bilaabayba bal culummadu waxay dhahaan fasaalix aayadda qur-aanka oo ah almaalu walbanuun waalbaaqiyaatu asaalixaatu markii laga soo sheekeeye wiilal almaalu waalbanuun waa quruxda adduunyadaa la yidhi wiilasha iyo xooluhu markaasuu alla muxuu yidhi waalbaaqiyaatu asaalixaat mufasiriinta qaar baa yidhi gabdhaha tootoosan ayaa khayrun min addukuur idinkaga khayr badan kuwa la yidhi almaalu walbanuun albanuunu kuwa la yidhi waxaa idinkaga khayr badan gabdhaha ayaa idinka khayr badan mufasiriinta qaar baa ku fasiray yahabu liman yashaau inaathan caruurtani rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata fii صaxiixi muslim min xadiidi abi hurayra nabigu salى اllahu alay wasalam saxaabada maalin su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi maa tacuduuna araquuba fiikum gablanka ma taqaanaan qofka gablanka araquub waa gablan qofka gablanka ma taqaanaan xadiidku waa saxiix baan idhi fii saxiix muslim buu ku yaalla ibnu ahiirna waa soo guurinayaa raximah llahu tabaaraka wa tacaala waxay dhaheen waa qofka aan ama caruur lahayn si anagu aan dhahnoo kale waa qofkaan caruur lahayn ama waa qofkaan gabdho wiilalba lahayn oo gabdho dhalay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam maya bal xadiidkaas si fiican u dhegaysta maya qofka gablanka ah si fiican gabdha u dhegaysta bishaaraystana dhegaysta oo bishaaraysta qofka arrintaas soo gala wuxuu yidhi waa qof qiyaamo imaan doona asagoon qofna u saqiirin ilmo yar kuu hormarin calooshaada ilmaa galay ma aada calfanin calooshuu ku dhintay may asagoo yar buu dhintay asagoon qaan gaadhin buu dhintay markaasaad ku sabartay ammaano ilaahay ceshaday baad u aragtay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baa tidhi inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa bal sidii umu sulaym bay aroos baa la galaaba haddii la rabo umu sulaym wiilkeedii oonbayday aroos gashay ilaahayna bedel buu ka siiyey dunida aakharana waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu bedel khayr badan ka fiican uu ka siiyo wuxuu yidhi waxaa gablana qof qiyaamo imaan doono oo ilmaba u saqiirin ilmaba u hormarin kaasaa gablana buu nabigu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam haddaba caruurtan maxaan u baahannahay waa hibe alla uu bixiye intaan ilaahay ku shukrino inaan maskaxda ka dhisno inaan maskaxdooda dhisno calooshooda aanan dhisin caqligooda inaan dhisno dharkooda aanan dhisin dharkooda aanan wax badan ku mashquulin laakiin aan caqligooda maskaxdooda garaadkooda diintooda akhlaaqdooda dadnimadooda inaanu dhisno kuwaasaa nagu anfacaya adduunyada kuwaasaana aakhare nagu anfacaya waxayna soo gelayaan
كوي النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وحاكم أو ولد صالح يدعو له المها يكون دعين يا محاض ملاين أردها يا إلهي هو يدي أرداف وإله أباه أرداف محاض ملاين إيسا لكن شقاك الرئيسة اعملوا آل داود شكرا أسأل الله إلهي له كلمة أنه أنفعه وجزاكم الله خير الدكتور كيغا ميشا فرديا كحشونا يا هذا انت كبدن إن سي وضو أنا آدي أقعد دارنا يا إلهنا وحن كبر يا وحن أصيبي إنه أجل كذا نسي وحي أنقفنه فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله. هذه أيوم هتسيها فضيلة الشيخ محمود أبو طلحة كلمة قيمة بدن